xaflad si weyn loo soo agaasimay laguna maamuusayay kooda Luulyo ayaa lagu qabtay dalka Turkiga. Munaasabaddan ayaa waxa ay ahayd sanad guuradii 58aad maalintii ay midoobeen koonfurta iyo waqooyi, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga, gaar ahaan Istanbul. Munaasabaddan ayaa waxaa looga hadlayay qiimaha ay leedahay Soomaalinimada. ugu horeyntii waxaa munaasabaddan ka hadlay xildhibaan Caash ومركي أي قبلة كونفرنس هذين قميصي طلياني هريديسي وقايو عفر إشك شوكتانا عالم كي أي كنت أي مدوبة لما قبل ودرات لها عبد الله السودان تما عده سرايا ومن نسقامو أنسدو يهاي كان سيب كنسا أنا بوحن كهلا يا وحن لها يا دليرة Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed haddaad daabartihiin dhaqdhaqaaqa gobonimo kuwii dhaliyay shalay dhigiina yahaayeen dhiigga waxay u shubayeen kii dhuuxa jiifa iyo kii dhabarka lagu sido waa idinka oo dhuuxa jiifay iyo kii dhabarka lagu siday ee ahaa kuwii yaryaraaye ka horeeyay xorriyaddii ee markaa la siday waxay ahaayeen 13 dhalinyaro ah oo ku shaqaynayay iyagoo aan lahayn taanay ku wada hadlaan ayaa mid la diri jiray xamar inta laga diraa loo diri jiray waqooyi. sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay taliyihii hore ee nabad sugidda Cabdiraxmaan Tuuryare. runtii munaasabaddan oo kale waxaa in laga yiraahdo ay mudan tahay waxaan isleeyahay waxaa ugu muhiimsan in la isxusuusiyo xornimada aan helnay wixii loo soo maray dhibkii loo soo maray iyo markii la helay ma lagu nafciyey maxaan hadda joognaa marxaladda hadda aan joogno xornimada waxaa loo soo maray dhib badan dad badan oo jiil ah oo dhalinyaro ah oo qaarkood arday yihiin qaarkood dad dhalinyaro ay yihiin ayaa ka dhiibiyey in Soomaaliya aysan magac lahayn, aysan calan lahayn, aysan dad jir ahayn. waa dhiibiyeen way halgameen ayagoo kaashanaya shacabkoodii iyo ummaddii markaa la nooleed waxay soo dhiciyeen xorriyad calanka ay keeneen dowladnimada ay keeneen meelo kala duwan dhalinyarada iska abaabuleen waqooyi waxaa iska abaabulo dhalinyaro 26 Juun ay xornimadii keeneen koonfurna waxaa iska abaabulay dhalinyaro SYL ayaguna kowdii ay keeneen labadaa dhalinyaro way bislaayeen way mideen Soomaaliya waa isku yimideen dowlad hal calan leh oo hal dal ah oo hal magac leh ayay sameeyeen dadka. ugu dambeyntii waxaa goobta xalfadda ka socotay hadalkiisa lagu soo gabagabeeyey gadoomiyihii hore ee caasimadda dalka Soomaaliya Mudane Taabad Cabdi Maxamed oo goobta ka soo jeediyey hadallo wax ku oo leh. waxaan si gaar ah ugu hambaleynayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay u soo dhaawacantay u dhibtootay u geeriyootay ilaalinta iyo adeegista difaaca qaranka kuwaas oo ay ugu horeeyaan ciidamada qaranka. waxaad mudan tihiin taallooyin in la idiin dhiso ciidamada qalabka sida dableyda alifleyda iyo saraakiisha sarsare meel kasta oo ay joogaan oo ay ku jiraan kuwa furimaha dagaalka jooga ee maalin walba diyaar u ah inay naga difaacaan cadowga iyo sidoo kale kuwa geeriyooday iyo qoysaskooda. waxaan dhammaan leeyahay abaalkiina ma iloobi doono. ummadda Soomaaliyeedna waxay mar walba xusuusnaan doontaa naftii aad u hurteen, dhiiggii aad u hurteen, maalkii aad u hurteen iyo geesinimada aad ku difaacdeen sharafka iyo qarannimada Soomaaliyeed. waxaa iman doonta maalin dhammaantiina la idin karaameyn doono la idin karaameyn doono sidii halyeeyada caalamka oo kale. ciidamadeena qalabka sida
waxa ay mudan yihiin xusid karaamayn meel kasta ay joogaan sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed waa inaan aad u weyneynaa ciidankeena qalabka sida ku faanaa isla markaasna aan ayagana xasuusinaa dadka sida idin jecel oo ummadda Soomaaliyeed oo meel walba ay joogaan sida idin jecel sidaa darteed ciidamada qalabka sida iyagana dhankiina waxaa idinka rajaynayaa xurmo inaad xurmaysaan oo aad u turtaan dadka sida idin jecel Soomaalinimadan dadka kaga sareynaa ee uu qaaday fanaanka da'da Axmed Xasan Cumar Qanille una alifay Abaan Cabdullaahi Axmed Cali Fanax waxa kamid ahaa miraha heestaas kuwii cadowga saaray midnimada sameeyay saqda dhexe habeenkii surtay caalamka baan nahay si kastaba ha noqotee soo jireenkii dhaqankiyo Soomaalinimadan dadka ugu sareynaa Abdulqaadir Xasan TV-ga caalamiga Koonfur Galbeed Soomaaliya Istanbul Turkiya